dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay weli ma maqashay buurta gacan libaax ama ma aragtay hadda saacadda bariga afrika waxay sheegaysaa 7 subaxnimo iyo qadar daqiiqada waxaana aanu ka dhaqaaqnay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil nala socda daawadayaal dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay intii aanu ku sii guda jirnay socdaalkayagani ayaan waxaanu sii marnay deegaano kala duwan kuwaas uu maasheeyay raxmaadka eebe isla markaasina ay ka muuqato cagaar iyo udug aan la qiyaasi karin ugu dambeyntii waxaanu gaarnay halkii socdaalkayagu ku eeka oo ah buurta gacan libaax waxaanaanu soo soconay masaafo dhan 100 kilomitir walow jidkaanu soo marnay ay ahayd mid ay wadadiisu aad u adag tahay saqaranka deliga ka jira dhibada taaga dhaqankiyo hidaha waan jeclahay u abkayn dhigay waxa laga dhexlay diintayada maaha dhalanteeda dhaxalkayda iyo waa sida aniga dhammaanay haddaba daawadayaal buurtan gacan libaax ee idiin muuqata waxay badda ka sarreysaa ilaa 1700 oo fiit buurtani gacan libaax ayaa waxay leedahay cimilo qabow gu iyo jiilaal dhirta ku taala buurtanina waa mid cagaaran dhanka maamulka waxay buurtani hoos tagtaa degmada gooda weyn ee gobolka Saaxil biixi guray waxa uu ka mid yahay ilaaliyayaasha buurtani gacan libaax waxaana aan ka wareysan doonaa taariikhda weyn ee ay leedahay buurtani buurtan waxaan joogay ilaa 75 halkaa 7 dawladood baa igu soo maray waxa joogi jiray maar libaaxyo 6 libaax baa joogi jiray 6 libaax baa maar dabeeraan haystay halkaasay ku cunay geedkan kore isku dhiiyo libaaxi baan sii toogo show maar lider baa show yimi wax baan ku sii geedkii balkaba soo degba geedkii yaa maarta iga roga haddaba maarta dhibaato badan ayaa buurtan maarta yaa naga soo maray buurtan imika waxa ku dhaqan maarta goodiro ya bahar cala ku yidhaaho batay wixii kale ka dabar goye waxaana 5 bilooda jiilaal 5 bilood xoolo ma cabi jirin wuxuu baa ku quban jirtay ceeryaan ceeryaantii markii calankii aynu helay bay goday way maqleen maanta intaa maantay timi maanta ayay timi ceeryaantii haddaba buurtan waxbaanaynu ka qabsadayn 1 geedoo dawa ayaa ku jira anigu maanta imika dhowr iyo 9 maanahay kayntaasaan cuna halkaasaan carrada go'an qaad ka soo qaata
toban haddana soo idhaha haddana hay ibraahim xuseen isaga laftiisu waxa uu ka mid yahay ilaaliyayaasha buurtani waxaana uu ka warramayaa taariikhaha kala duwan ee ay leedahay buurtani. dhirtan waan kaaga warramayaa horta waad aragtaa cabdirasaaqoo meeshu waa meesha ilaahay nimcoolida ka dhiga dhirtan ku taallaa ee ku muuqataa geed aadame abuuray kuma jiro waa dhir dabiici ahoo ilaahay abuuray oo ma garanaysa aan wax lagu kordhiyi jirin nimcadaa faraha badan ee geedaha lehee dhirta lehee cawska lehee wax walbana dee waad aragtaa oo imika adigaaba dee indhahaaga ku arka waddanku waa waddan nimcoolaya ilaahay wuu ka dhigay dhul qabow oo aan bacad iyo dhaxan iyo ma garanaysaa cimilada isbedbedelo lahayn had iyo jeeraale taa aad imika ku joogtay jawiga qabow ee diirimaadkii qabowga isugu jira ayay 24 saacadood uu yahay waxaa kaloo ay leedahay dhirtani waa dhir dawo sun nooc kasta laga heli karo waxayse u baahan tahay ciddii ka faa'iidaysan lahayd ee dee ummadda somalilan iyo dee ummadda soomaaliyeed ciddii ka faa'iidaysanaysa cidnaba dee cidi kama hor joogsanayso waxaa loo baahan yahay sidii wax looga qabsan lahaa meeshan waxaa dhirtan ku taalla magacyadeeda ilaahay unbadii soo koobi karaa innagu sooma koobi karo waxay leedahay dayibkii bardihii dhosoqii xayramadkii geedkan salaamcada la yidhaahdo xididkiisu caloosha iyo maaragtay dadka istaagta baa lagu socodsiiya waxay leedahay qaar xoolaaba lagu dhibeeyo geedkan lagu yidhahdo salaamcada waa la yar khamiirinayaa shilintaa xoolaa laga mariyaa 5 mirir bay halkaa ku taalo ku qumbabaysa waxay leedahay kii libaax cunaayee qorshaankii uu keenayo uga imanayay marka uu xanuunka ka dhaco waxa laygu yidhaa dhaxda iyo dhulkaasuu ku daweeya waxay kaloo leedahay geedkan dhusuqa la yidhahdo isagana marka xoolo caalaanayo waxaasna intuu midhihiisiyo waxaa la tumo ayaa lagu daweeya markaa dhulku waa dhulkaa nimcoolidaahay dee quruxda badan ee ma garanaysaa ilaahay nimcada ku manaysta waxay kaloo leedahay cabdirasaaqow dhulkani waad soo martay haddeerto gebiyo iyo dhul ma garanaysa la daawado oo aad meeshaad doonto dee arkayso markaad isku dul taagto halkan imika aynu joognaa waxa weeyaan goobtii guryihii ingiriisku u hoyan jiray ma garanaysaa dee u hoyan jiree free roast la odhan jiray uu deganaa markaa way burbureenoo adigu dee faqashtii waxaasa ka yar burburisay waa dhulkii uu ku raaxaysan jiray dhirtan hoosteedu waa dhir iska wada xaadhanoo ilaa iyo xilligaa dhirtan aad arkaysaa dhir dayar maaha ilaa iyo xilligaa badideedu way ku taal waxayse leedahay intii baryihii faqashidii iyo wixii dhulku yar baaboo xoolaa iyo waxaasi soo galeenoo lagu ku xaroodeenoo dhirta yar naafeeya intii ka dambeysay waa la ilaalinayay oo dee ma garanaysaa shaqaalaa joogay markaa waxaan ku yidhi noocaasay dee meeshan nimcada ilaahay dhiga ay tahay waana dhul lagu noolaan karaayo waxaa loogu keenay xitaa qaar yurub laga keenay oo maskaxdu kacday oo markay ayaama joogeen hawadaa qaatay oo nafisay oo iska degay oo ilaahay halkii caafimaad ku siiyey markaa dabeecadahan meesha ay leedahay waxaa ku nool ugaadhii dee kala jaadjaadka ahayd ee aan markii horeba kuu sheegay waxaa ku nool bahalkii shabeelka la yidhaahdo libaaxu isagu beryo hore ayaa noogu dambeysay adigu 99 mar yimi markiina markuu geedkiisii wixii cunuu iska noqdo markaa waa noocyada noocaasa bay dee meeshan hawlaheeda iyo xisaabaheedu ku dhan yihiin ibraahino de buurtani waa buur ilaa saakoonu joognay cilmiyadeedana waanu aragnay quruxdeeda iyo wax badan baan ku aragnay waana horu arag maadaama tahay dadka ilaaliya halkan buurtan intii aad joogtay maxaa kugula yaabana wallaahi niyow la yaabkeedu horta dee xilliyadii faqashtii waxyaabo badan ba howlo badan baa naga soo maray annagoo halkan joogna buu lixli noogu yimi oo markii uu jeelka gelayee sidaa markuu nooga dhaaqayna faqashtii baa noogu soo gashay waxay ahayd khatar dee haddii markaa lagugu qabto aanad meelaad martay la arkeen iminka waxaa kaloo igu sii la yaab badnaa ayana dhaweed mid yar baa annagoo halkan xerada joogna ayaa la yidhi soo qayla noo timaraysa inan baa gebigan ka dhacay
guryahan waxaa la dhisay 2002 anigaa dhisay waxaa la yidhaha mutulayaal waxaa la yidhaha mutulayaal waxaa laga isticmaalaa galbeedkan Itoobiya iyo koonfurta Soomaaliya labadaba waa waxa dhulkeenna aan ma garanaysaa ku badnayn oo aynaan dabiiciyeen inagu aad hor u dhisanin dalxiis ahaan iyo ma garanaysaa daawash ahaan baa looga dhisay meeshana waa meel dee dalxiis oo muddo badan oo ilaa intii waqtigii ingiriiskii baa dee ahayd waqti meel dalxiis marka annagu waxaanu nahay shaqaalaha ilaaliye ee wax wasaaradda ka tirsan iyo wax ka dhalayn ka tirsan labadaba dhirteedu waa dhir dabiici iyo dhir la beeray bay isugu jirtaa dhirtan dabiiciga ahi waxaa ka mid ah dayibka wegarka bahalkan geedkan oo la yidhahdo isna dhegmud dhir fara badan oo ma garanaysaa dee dabiiciya dhusuq xayramad way fara badan tahay daawashooyinkeedu waxay leedahay godad la daawado iyo dhul gebiya ah labadaba way leedahay dee dalxiiska ku fiican dabiiciga waxa ku nooli ugaadha waxa u badan goodirka iyo adeeryada iyo bahasha la yidhahdo deerada cawsha xoog bay u joogaan kuwaasi oo aad bay ugu dhaqan yihiin waxaa kaloo jooga bah la yidhaha shabeel oo dadka waxyaalo badan uma geystay xoolaha iyo waxaasu cuna waxay kaloo leedahay meeshu dhir badan oo kala jaadjaada mid suna mid dawaa mid 100 nooc loo kala qaar libaax cuno u gaar baaho uu Kenya uga yimaado maxaa la yidhaha kuwa qorjeen baa la yidhahdaa adhaxda iyo muruqyada iyo dhulkaasi ku daweeya markuu bukoodo marka dhir fara badan oo ilaahay uu xisaabin karaa waa meesha ku taalla waxay kaloo leedahay meeshu dhul dabiiciyanhu asaaru qadiim iyo hore loo deganaan jiray oo hangaro wareegsan leh oo qaar waabana si toona imika markaanu tagno haddii ilaahay ka dhigo halkaa erkaxidhiya meelaha ku yaalla oo haddaad aragtaad la yaabayso la dhisay oo ma garanaysa kaabado dee dhisana marka meeshu waa meel cajiib ah laakiin dadka dee ama u dhashay ama had iyo jeeraale dee mutacalimiintii waxaasi waxaan u malaynaya inaan aqoonba u lahayn oo aanay hoosba u eegin haddii cid kale meesha joogi lahayd ku noolaan lahayd waxaa laga samayn lahaa dhul lagu nasto oo ama hudheelaa ama hurdaa ama dee dadku dheyli waa naloo yimaadaa biniaadanku markay yimaadaan meesha wax la cuno ma leedahay maya meel la seexdaan waxaa ugu hoyano ma leedahay maya waxa weeye de wax ka qabsaduun bay leedahay meel dhaqaale badan laga heli lahaa weeye meeshu haddii ma garanaysaa loo soo jeesto marka annagu waxaanu ilaalinaa uun dee dhirteeda iyo ma garanaysaa wax waxyeello u geysanaya iyo daaqeeda labadaba waana seero qaran meeshu guud ahaan oo waktina la xidho waktina loo furo ummadda waana seero degaanoo dee deegaanka iyo waxaasunbay xidhisteeda iyo furisteeda iyo waxaasina ka go-a marka abaaraha ee xooluhu abaarsadaan waa loo furaa marka barwaaqadana bilaa loo xidho walow aan beryahan la xidhin intii hore ee xilli faqashkiina dhul gabar manaabaa ahayd oo aan dowladdu markay doontana ay furto markay doontana ay xidhato intana maahe waxay leedahay dhul aynaan imika gaadhinoo bookh iyo banan waaweynoo ma garanaysaa xoolaha nooc waliba ku noolaan karo waxay kaloo leedahay dhul caymaahoo geela iyo riyaa iyo waxyaabaha noocaas iyo luduba ku noolaan karaan waxay leedahay qoolal gebiyo dhul la yidhahdo xarar way fara badan tahay magacyadeedu waddooyinka ka degaa way ka badan yihiin 130 waddo waxaa igu maqalaa in deegaankan uu halgankii dalkan dubuxoreynta somalilan uu qayb weyn ka lahaa haye bal arrintaasi aad iyo aad bay qiimo ugu lahay waa meeshii koowaad markii jeelka madheere la jibinayay soo galay lixlii ciidankii u watay godad halkan oo imika la yidhaahdo god lixli iyo qaar halkan oo weecis la yidhaahdo mid walba 3 bilood buu haynayo faqashta darimara iyo gaajogtaanay ogeen oo halkaa dadku raashinka iyo xoolaaba ugu keenayeen waxay kaloo leedahay maalmihii meesha lagaga duulay madheere lagaga duulayna bartanaynu imika joognaabay ahayd wadda halkan oo la yidhaahdo tuqsaday kaga dhaadhacay halkaasay dabeeto markii dambena dhaawacoodii bilo dhan buu halkan ku jira jaamac qarash iyo nimanka ay ka mid ahaayeen meesha ku dhaawacaan qoolashana lagu hayo lagu daaweyn jiray marka meeshu waa meel halgankiisi lixaadle uga soo qaadatay hawlihiisii markii dambe sanamtiina dee hadalkeeda badda saldhig waa kii isku darkan ahaa
waxaa deganaa jiray lixaad iyo lixaad b laba urur loo la kala yidhaahdo deganaayo lixaad iyo lixaad b markaa meeshu waxay ahayd meel xaggaa halgankana qiimo lixaadle ka soo qaadatay ilaa iyo sidiina dee waa loo ilaaliyaa una waa loo degan yaho laakiin xagga dowladda iyo xaggaana dee weli wax tarahoo ay caawimooyin iyo hawlo ay wax nagala qabatay midna ma hayno. deeq cabdi warsame waa xogayaha degmada gooda weyn waxaana uu ka warbixinayaa godka kabcun oo isagu ku yaala buurtani. baan idiin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada buurtii dalxiiska ee gacan libaax mar labaadka haddii aan waxoogay taariikha idinka siiyo horta godkani wuxuu ka mid yahay godadka dalxiiska loo yimaado ee buurta gacan libaax waa dhowr god baa jira had iyo jeer waa godka laakiin lagu badan yahay ee la yimaado godkani waa godki dhowr boqol oo sano ka hor ayaa la ogaaday in godadka la soo geli karayo uu ka mid yahay godadka qaar baa buurta ku jiro oo aan cidigelin sababtoo ah hadday tahay nabadgelyada qofka godadkoo aada u madow waxyaabaha laakiin godkani wuxuu leeyahay albaabka laga soo gelaya wuxuu leeyahay barxad weyn oo ballaadhan oo dadku markay soo gelayaanna ku nastaan marka ay kasoo godka soo galaanay ka baxaanna kusii nastaan waxa kale oo uu leeyahay daaqad ilaahay u sameeyey oo natural ah oo barta ay dadku istaagayaan ee ugu dambaysa ah oo cadceedii uu ka helayaan dadkii laguna nasanayo iftiinkina ka soo gelayo haddii aanay markaa jirin daaqadani oon ilaahay u samayn cidi soomay gasheen sababtoo qofku dee naftiisa wuxuu ku aaminayaa dee meel safetyna marka sababahaasa dadku had iyo jeer u yimaadaan godad badan oo ka dhaadheer oo ka madow baa jira godkani waa aragtaano halkan waa la awday anigu iyada oo furan oo la galo ayaan soo gaadhay odayaasha qaar aan waraystay waxay igu yidhaaheen waxoogay baa la socday markii la aad in dooro socoto waxaad u gelaysaa dhowr albaab oo kale markaa si aanu qofku dadkan dalxiiska u imanaya markay galaan aanay dabeedna hadhowto waayin meelay ka soo baxaan ayaa loo xidhay markaa halkani way xidhantay haddii la furo waa la soconayaa ilaa 5 kilomitir baa la soconaya sababtoo ah halkan markaynu imika ka dhaqaaqno ku tooskeeda kale meel 2 kilomitir u jirta ayuu ka daloolaa laga arkayaa godkani marka godkani waxyaabaha runtii godadka la ilaaliyay ka mid yihiin nadaafadiisa waan si gaar ah u ilaalinaa shaqaala jooga waayo haddii nadaafadiisu xumaato cid geli mayso waxaanan uga faa'iideysanayaa dadka imanaya ee jaamacadaha u badani waa inay ilaaliyaan nadaafada buurta guud ahaan horta marka hore marka labaadna godadka dalxiiska ay u tegayaan waa inay ilaaliyaan oo aanay ku tuurin caagadaha daasadaha iyo bacaha taasi waa midaan uga faa'iideysanaya fursadda sheegtay in halkan iminka midow la xidhay godkan goormaa la ogaaday in ay dadku dalxiisaan u iman karaan ama la soo geli karo godkan horta waxaa ogaaday qarniyadii inaga horreeyey anigu qofkii ugu horreeyey ee ii sheegay wuxuu ahaa allah u naxariistay aabbahay waktigaa uu sheegayo markaa anigu ii sheegayo wuxuu ahaa 9 jir dadkii ka sii horreeyey ayaana isagana tusay marka 500 oo sano ka hor ayaa la ogaaday godkan oo in dalxiis loo geli karo ka soo galaya buurta soo galaya markay buurta soo koraan waan wacdi gelinaa waxaanu dhahnaa wixii ay sidaan caagadaha iyo wixii qashina reeba baanu dhahnaa marka godkan waxaa laga ilaaliyaa qashinka wixii intaa soo dhaafana kolba 2 cashaba mar baanu imaadnaa waan ka gurnaa waan gubnaa markaa sidaasaan u ilaalinaa dadka halkan idinku yimaada ee dalxiisayaasha ah sidee u soo dhaweysa si wanaagsan baan u soo dhaweynaayo si wanaagsan oo akhlaaq leh baan u soo dhaweynaa waxaan baan ka wacdi gelinaa sida buurta maaragtay ay qashinka uga ilaalin lahaayeen halkan aynu joognaa waa meeshii uu ingiriisku ku lahaa guriga ee uu ka leedhsan jiray wuxuu ka daawan jiray barxadan weyna aragtaan waxa weeyaan ulaameydii baa halkan inaga marta dhinaca waxaa ka muuqato inkasta oo ay ceeriyaan maanta ku jiifto mandheera dhinacan kale waxa weeyaan iyaduna la faruug
halkan waxaa ku soo jirta xiin weynaa ku soo jira marka uu habeenkii aan ceeryaantu joogin waxa ka muuqda laba leydh baa halkan ka muuqda oo ninkii ingiriiska uu ka daawan jiray mid waa leydhka cadan leydhkeedu bartaas ka muuqda leydhka labaadna waxa weeye ka berbera ayaa isaguna ka muuqda waanaad aragteeno dee AC baynu iskaga fadhinaa markaa gu iyo jiilaal halkan xataa bacad ma leh hawadana ayaa waxaan ku macaadeedana isaa isku aragtaanba way yartahay daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay buurta gacan libaax waxaanaad kala socoteen shaashada telefishinka caalamiga ee badda cas barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdirasaaq qaasim jaamaca intaynu barnaamijyo kuwan oo kalea iskugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheelyahay sidii ubad anan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwan ku dhulay